kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa kaaha bulshada waa mar kale iyo wada sheekeysi kale oo ku saabsan arrimaha dadkeena Soomaalida gudaha hadii joogaan iyo hadii dibadda jiraan intaba maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha dadkeena Soomaalida dhaqan xumada ay ku hayaan wadamada galbeedka taas oo markii dalka Soomaaliya burburka dhacay isla markaana ay dhaxdooda isdagaaleen oo ay is dhibaateen qaxeen tageen galbeedka ayaa waxa jirta in halkaas markay tageen ay ka sameeyeen waxyaabo anshaxa iyo diinta islaamka intaba ka soo horjeeday dhaqanka suuban ee Soomaalida ay sheegay jirtay dadka Soomaalida waxa arkaysaa inay inta badan u dagaalamaan ayaga iyo wadaadada iyo aqoonyahankooda iyo bulshada qeybeeda kala duwan waxa loo yaqaan xalaal food ama cuntada xalaasha ah su'aalaha jirta meeshaasi waa arrin fiican in raadiso wax xalaal ah maadaama aan dad muslimiin ah laakiin waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah cuntadaasi xalaasha ay raadinayaan bilcagsi waxa ku ah kansamka ama waxa markaasi ayga soo galay oo ah lacag aan xalaal ahayn haddaba lacagaha inta badan ee dadka Soomaalida sameeyaan ee aan xalaasha ahayn ama bilcagsi ku ah cuntada xalaasha ay raadiyaan waxa kamid ah waxyaabaha ceerta ah ay qaataan ama waxaan jaal saboortiga loo yaqaan oo waxa arkaysaa nin ayaa iyo xaaskiisa waxay ku heshiinayaan in xaaskay garoob tahay aan la qabin ama single mother ay tahay ninkii magaalada dhinaca ugu jira habeenkii way isku imaanayaan waa kaas sida carruurtu markaas hoosh ku socota waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah waxa loo yaqaano ceerta oo dadkeena Soomaalida si been ah ay ku qaataan tusaale ahaan waxa arkaysaa nin ayaa wuxuu ka dhaadhicinayaa xaaskiisa in ay been sheegto markay la tagay ama markay u tagayso kooxaha caawiya hooyooyinka iyo carruurta waxaana uu sheegayaa in ay sheegato inay tahay garoob ama single mothers isla markaana uu ninkeeda uusan joogin waxa arkaysaa ninkii lacagta oo qaadana isagana gaar u shaqeysanaya kadibna sanad kastana cunuga inaad iluusa dadka reer galbeedka way fahamsiin in dhaqanka dadka Soomaalida uu yahay ama aysan ku dhalin waxa loo yaqaano wada noolaashada oo aan nikah laan ku dhalin haddana sida ay tahay way iskaga aamusan iska dhaafaan laakiin dhibaatada xagee ka jirta waxay ka jirtaa dadka Soomaalida halkaas jooga in kansabka ama lacagta ka soo galayso beenta ay ceerta ay ku qaadanayaan ay tahay lacag aan sax ahayn marnaba sax ma ahan qofka aan muslimkeen in aqaanto kaas oo waliba ku caawinaya gargaar ku siinaya dalka Soomaaliya ka soo qaxday waxa ku soo qaxshay ku soo ceeriyay ama ka soo oroday ee amnigaad markaasi ugu soo carartay ee dalka ka soo ceersaday waa nin Soomaali kula kugu diina kugu dhaqana kugu midab ah kugu af ah wax kasta wadaagtaan waxa uu tagtay ninkaas u tagtay galbeedka uu ku soo dhaweeyay kugu diin maahan kugu dhaqan maahan kugu af maahan xitaa kugu midab maahan haddana waxa isku dayaysaa inaad qiyaanto waxaan sheeganaysaa diinta islaamka ama qof muslim inaad tahay waxyaabaha cajiibka ah ee dadkeena Soomaalida heesta ay kamid tahay arrimahaasi dadka Soomaalida marka waxa arkaysaa inay inta badan ku dadaalaan anaga waxa raadinaa cunto xalaal raadinaa meel helaa ka soo gadnaa waxyaabo noocaas ah dhahan laakiin marnaba isma weydiiyaan oo macnaha waxba iskama weydiiyaan iskama su'aalaan arrimaha ku aadan kansabka ama waxa markaasi dhaqaalaha ka soo galay beenta ay markaasi carruurtooda ku qaadayaan madaxooda aabihiin dhinac magaalo ugu jiro waxyaabaha kale cajiibka waxa kamid ah ninka Soomaaliga markuu dibadaha tago wuxuu sameeyaa wax ka badan hal xaas ayuu guursaa ama hal haween ka badan guursaa marka sharciga waddankaasina wuxuu dhigayaa hal haween ka badan inaad guursan karin oo markaasi waxa dhacaysa marka in mid kamid ah haweenkaasi uu qiyaamo ama laba kamid ah uu qiyaamo oo markaasi been sheego isla markaa carruurtaasi dhalanaya haddii hooyadaas ay dhimato aabahan ma sheegi karo sababtoo ah waxa ilmahan ku qoran hooyada isaga kuma qorno maxay been oo sheegay waxa laga yaabaa dalkaasi uu ka diiwaan gashan yahay in laba xaas ay u joogto marka hal xabaya u diiwaan gashan waa mid ugu macquulsan kuwa kale waxba ma diiwaan gashtaan intaas waxay ka cararayaan lacagaha ay shaqeystaan markaasi in carruurtooda ay koriyaan sheekooyinka ugu cajiibka badan waxa kamid ah dadkeena Soomaalida gaar ahaan ragga in carruurtooda korinta ilmahooda dhaqaale ay siinayaan u dhibsanayo
ودقة حما مركزي آد وجسوا باسن دك الصومالية أو مركز وقفك الصومالي أمريكا الصومالي جودها دك الجوجا هوينك أوفر أنت بدن وحارك ساعة عروت ولا فرع مركز قلبيتك الجوجنا sidoo kale wuxuu diidan yahay isagoo shaqaale si fursad badan haysta wuxuu rabaa in meelaha inta fariiso ku fadhiyo u fariisto isla markaana mas'uul uusan iska saarin carruurtiisa marka waxa arkaysaa in uu sheegto ilmihiisa inuu inkiro nikaaxiyo inkira ilmihiisa inkira wixii dhan inkira haddaba meeshaasi waxa ka jirto in carruurtina aad markaasi inkirtay been aad ku sii raadinayso oo lacagna markaas meesha aad kaga raadinayso adoo wax un raadinayso waxyaabaha kale cajiibka ah ee dadka Soomaalida dhaqaxumada ah ay la tageen galbeedku waxa kamid ah ay meelaha goobaha cibaadada masaajidada ama goobaha cibaadada waa meelaha ugu muhiimsan ee la rabo in qofka muslimka uu soo bandhigo akhlaaqdiisa wanaagsan oo uu noqdo qof markaas lagu daydo haddaba maxaa ka dhacay wadamada galbeedka Soomaalida maxay ka sameysay masaajidadii ama beedkii Ilaahay ay ku dagaalameen iyagoo qaarkood ay xiriyihiin masaajidadaas waxaa kamid ah masaajidka Liida Tawfiiq ee ku yaala magaalada Oslo ee dalka Norway oo ay dhacday in markaasi gacmaha isku tageen oo qaab qabiil iyo wax noocaas isku dagaaleen iyagoo isku haystay lacag yar sunuud ah oo markaasi dawladda Norway ay siiso masaajidkaasi si markaasi muaddinkii iyo imaamkii guddiga masaajidkaasi ay markaa howlaha ugu socodsiiyaan isla markaana carruurta ee Soomaalida ee muslimiinta ee halkaas Quraanka ku baraan maxaa dhacay marka masaajidkii lacagna waxay ka qaataan dawladda sidoo kale waxay lacag ka qaataan carruurta oo marka waalidka carruurta oo cala cunugii waxay ku baraan lacag 400 koron ah oo u dhiganta $50 meelaas oo cala cunug laga qaadaa lacagtaasna way qaadanayaan dawladda Norway lacag ka qaadanayaan marka waxaa dhacday in ayaga lacagta isku dagaaleen Norway kaliya Sweden way ka dhacday meel badan ka dhacday in masaajidada badan ay hadda xiran yihiin oo foodo dadka Soomaalida dhaxdooda iyagoo qaab qabiila isku qabsanaya markaasi aad arkayso waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah laba nin ayaa isdagaalayso oo guddiga ka wada tirsan masaajidka mid kamid ah waxa uu muuqanaa in laga adkaado ama loo awood sheegto waa loo awood sheegana kii loo awood sheegto waa carraa wuxuu dabada la galaa masarka la galaa markaasi beeshiisa niman oo guddiga markaasi ama xaafadda degnaa ama jaalida waxaas wuxuu war soo kacayo reer hebel baan dhaceen soo baxa reer hebelkiisa duulaan kii kale marka oo asna markaasi ninkii ku ceersaday isna wuxuu wacana qabiilkiisa maadaama oo qabiilkiisa soo duulaan meesha marka waxa ka dhalan marka foodo dhaqaxumadii dalka Soomaaliya ugu carreen ayaa isla meesha ka tagtay isla masaajidka Ilaahay ama beedka Ilaahay ayaa markaas foodo ka dhacaysa waa is qabsanaa buuqi wuxuu gaaraa marka dawladda kadibna markaasi wuxuu malaysaa dadka marka muuqaal ahaan fiiriso waa niman markaasi muuqaal ahaan ku cajib gelinaya garwaaweyn leh oo markaasi aan malaysaa marka kor ka fiiriso niman qatar ah واتو إلهي سبحانه وتعالى مركو منافقين تشاقا يقولي تعجبك أجسامهم كأنهم قصب مسندة من عسيد الدقب أما تيري ومنها قاب هينات كود مركا في سيقاب كود يقرر كود أدو قرب بدين لكن دخل كود أخلاق ضوضة اسم الله إيه منها أخلاق ضوضة إيو موقال كود وحاد دأوين موقال كود وحان ليت أخلاق ضوضة وحي كأخلاق ليت عرورتهم حي عرورتهم مرقر كود وحيابا يكون دغان ضد كاسيما السميان waxaa la isku haysanaa waa dhaqaale ama sunuud yar oo misaadka guddigiisa lagu talagalay oo dawlad markaasi aan muslim ahayn bixiso dhaqaalahaas ee dawladda laftigeeda ee siinaysa nimankaasi isku dagaalayaan waa dhaqaale keenay kaniisada waa dhaqaale keenay kalaabida waa dhaqaale keenay maxaa sheegay gabadha ama ninka jirkiisa ganacsada laga keenay doofaar kilibkiisa shirkadaha sameeya maxaa la sheegay cashuur laga soo qaaday waxyaabahaas la siinaa waxaas isku sii dagaalayaan waa sunuud yar waa dhaqaxumo markaasi ay ku soo kordhiyeen dadka Soomaalida ee la tageen dalalka reer galbeedka dalkooda waxay ku burburiyeen dhaqaxumo iyo qaab daro sidoo kalena waxay dhaqaxumadaas ku sii la sii tageen wadamada galbeedka arinta kale cajiibka ah ama u baahan in aan markaas iftiimino waxa kamid ah idinkana ogtihiin waxa loo yaqaano jaalidaha iyagana waa cudurka ugu daran ee Soomaalida dhaqaxumada ay la tageen galbeedka wadan kasto aad tagto magaalo kamid ah waxa arkaysaa 100 urur haddaba ugu qabiilaadka ayaa jufo iskugu sii wadeen ay si kala baxeen oo jufo kasta waxa arkaysaa inay jaalid leedahay haddaba jaalidaha maxaa loogu talagalay jaalidaha waxaa loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed ku ilaashato danahooda wadajirkooda iyo xuquuqda dadka Soomaalida haddii ay dhacdo qof Soomaali ah oo si sharci darro ah loogu musaafiriyo wadankaasi ama waxyaabo kale ee la xiriira xuquuqda qofka Soomaaliga
oo aan la dhibaateerin ayaa lagu talagalay jaalidaasi inay difaacdo qofkaasi ee ku difaacdo inuu yahay Soomaali laakiin waxaa dhacday in jaalidihii ay kala noqdeen qabiilad kala baabaxeen oo jaalida u kala noqdeen hoos jufooyin kala noqdeen oo aad arkayso dhaqan xumadii dalka Soomaaliya ka jira ee ku aadanaa ama cunfi ku aadanaa qabiilka ay la tageen dalkaasi isla markaana dawladihii reer galbeedka ay yaabihiin oo wadamo kale marka fiiriso jaalidooda waa hal waan dad isku markaas hal mowqif haysta oo hal dan wada ilaashadaan hal xuquuq wada ilaashado iyo wada jir markaas ka dhaxayso oo dad markaas wada jir ah Soomaalida marka tagto ninka soo xorbiya in dhaqan xumadii uu marka dalkiis kala soo tagay inuu wadankaas geeyo oo qabiilkii u difaaca maxay raday sheegay wuxuu rabaa inuu kaaga sheekeeyo baadiyaha Soomaaliya waxa ka dhacayo ama laba qabiil isku dagaashay ay kala safanayaan هذا هو ذكاسي وحكسوا على مركاسي كثير وحيد الكل كسوين أمني وحكسوين نال شقة وحكس كسوين أنت بحكوا وذكاس لكن كفايس كما يسفايسن ذاك الصومالي ذا وضد مركاسي أقولنا وضمن قلبي مكاتين كم فايسن أقوانتين أخبرتان سيدو كله وضد أن كفايسن فرصتها شقة يدل كاسي تيلي وضد فخري أو ربعين مركاسي خاطر وحلو يقرأ si markaasi been ay ku qaataan lacag oo iyagu dawladda wadankaasi been u sheegay sida markaas barnaamijka bilowgiisa aan ku soo sheegnay marka Soomaalida dhibaato badan haysto annagana waxa isku sheegnaa waxyaabo cajiib waxa ka mid ah dadka Soomaalida intaas ay sameynayaan markaasi waxay isku arkaan inay yihiin dad ka fiican jaalidaha iyo dadka ay u tageen ee markaas ay beenta u sheegayaan inay yihiin dad ka fiican ka akhlaaq fiican iyagoo markaas inta badan sheegtay inay yihiin dad muslimiin ah dad dhaqan fiican leh dhaqan suuban leh intaba waxaa arkaysaa ficilka afka ay ka sheegayaan iyo hadalka afka ay ka sheegayaan ficilka ay sameynayaan waa markaas mid kala duwan ilaahayna subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay ya ayyuhalladhina aamanu lima taquluna ma la taf'alun waxa afka sheegaysaa inaad dad muslimiin tihiin dhaqan fiican haystiin wanaagsan tihiin iyo waxa markaas bilcagsiga ah ee ficilka sameynaysan isma lahan waa ma santiin hada markaas muuqaalkan ka heshan subscribe noo saar thank you ma sanidin